Maxaa laga rabaa haddii aad Jarmalka rabto in aad fiiso ku timaadid? Shuruudaha fiisaha Jarmalka. Habka codsiga fiisa. Maxay yihiin dukumiintiyada loo baahan yahay marka la codsanayo fiisaha Jarmalka? Shuruudaha fiisa dheeraadka ah ee Jarmalka ee yar. Dukumiintiyada loo baahan yahay ee fiisaha Jarmalka ee loo yaqaan Schengen Visa ee xaaskasayga muwaadin Jarmal ah. Fiisaha Jarmalka ee Schengen ee xubnaha ergooyinka rasmiga ah. Sidee loo dalbadaa fiisaha Jarmalka ee muddada gaaban? Halkee laga codsanayaa fiisaha Jarmalka ee joogitaanka gaaban? Ayaa ka dalban kara fiisaha Schengen safaaradda Jarmalka qunsuliyadda FAC. Muddo intee leeg ayay qaadanaysaa si loo helo fiisaha Jarmalka? Qodobada macluumaadkaasi ayaan ku faahfaahin doonaa. Mahadsanid. Magacaygu waa Maryan Adan Xaaji. Shuruudaha fiisaha Jarmalka waxay ku xiran tahay ujeeddada safarkaaga Jarmalka. Waad dalban kartaa fiisooyin kala duwan. Waxaad qorshaynaysaa inaad soo booqato Jarmalka si aad wax u barato ama u shaqayso ama xitaa inaad halkaas degto. Si kastaba ha noqotee, waa inaad dalbataa fiiso ku salaysan shuruudahaaga. Kuwani waa noocyada fiisaha Jarmalka ee inta badan la isticmaalo. Dalxiis booqde. Fiisahani waa mid fiican haddii aad u socoto Jarmalka si aad u booqato saaxiibada ama ehelkaaga. Sidoo kale haddaad haysatid qorsho aad ku aragto kuna kasbato waddanka iyo dhaqankeeda, fiisaha waxaa loo isticmaali karaa. Isu keenida qoyska. Fiisahan ayaa u oggolaanaya gelitaanka xubnaha qoyska ee dadka degan Jarmalka ee doonaya inay ku soo biiraan Jarmalka. Shaqo doon. Fiisaha job wuxuu kaloo u oggolaanayaa qofka haysta inuu u aado Jarmalka oo uu shaqo raadsado. Barashada luuqadda. Fiisahan ayaa ku habboon ardayda shisheeyaha. Haddii aad ku soo galayso Jarmalka ujeeddada keliya ee ah inaad dhigato koorso luqadeed, ama haddii aad doorbidayso inaad waxbarasho ka dhigato xarun waxbarasho oo ku taal Jarmalka. Shaqayn. Haddii ay dhacdo inaad qorshaynayso inaad u soo guurto Jarmalka ujeeddo shaqo darteed, waad ka soo geli kartaa fiisahan. Ama shaqo ayaad ka heshay Jarmalka. Ganacsiga. Codso fiisahan haddii aad ujeedo u leedahay ganacsi muddo ka badan 90 maalmood gudahood 6 bilood gudahood. Waxaad sidoo kale dooran kartaa fiisahan ee ka qayb qaadashada dhaqanka, cayaaraha, iyo qayb ka mid ah filimka samaynta. Martida. Fiisahan wuxuu siinayaa gelitaanka aqoon-yahanada ama cilmi-baadhayaasha. Saynisyahanada ama cilmi-baadhayaashu waa inay casuumad ka helaan Jarmalka. Internship. Fiisahani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ka qayb gasho tababar ama tababar gudaha Jarmalka. Daaweynta caafimaadka. Fiisayaashani waxay waxtar u yeelan karaan ajaanibta doonaya la dhakhaatiirta Jarmalka. Shuruudaha fiisaha Jarmalka. Waa inaad tustaa xoogaa dukumentiyo midaysan si aad u hesho fiisaha Jarmalka. Shuruudaha dukumiintiyadu way ku kala duwan yihiin waddan Schengen ilaa waddan kale. Waxaa lagu talinayaa in la fuliyo codsi kasta oo ay safaaraddu weydiiso. Safaaradda Jarmalku waxay sii wadaysaa cusboonaysiinta liiska hubinta shuruudaha fiisaha Jarmalka. Waxaad ka hubin kartaa bogga rasmiga ah ee safaaradda Jarmalka. Liistada dukumiintiyada ku qasbay codsi kasta oo fiisaha Jarmalka ah. Foomka codsiga. Foomka dalabka waa in lagu buuxiyaa jawaabo sax ah oo daacad ah. Macluumaadka la buuxiyey waa inuu la mid noqdo macluumaadka dukumiintiyada kale ee loo baahan yahay. Waad soo dejisan kartaa foomka codsiga fiisaha Jarmalka adoo gujinaya foomka codsiga. Passport. Caddaynta baasaboorku waa inay ahaataa 3 bilood oo dhaafsiisan joogitaankaaga qorshaysan ee Schengen. Booto. Sawirka aad bixisaa waa inuu dhowaan noqdaa. Waxaa la xiray 3 bilood ee la soo dhaafay. Sawirku waa inuu raacaa heerarka kale ee sawir ee ay dejisay safaaradda Jarmalka. Caymiska caafimaadka. Waa inaad haysataa dukumentigaaga caymiska caafimaadka. Caymiska waa inuu daboolaa caymiska caafimaadka safarka oo ay ku jiraan jirooyinka iyo shilalka. Caymiska xitaa waa inuu lahaadaa dib u celin haddii ay dhacdo dhimasho.
waa inay ku dabooshaa dhammaan aaga Schengen daboolis ugu yaraan 30,000 oo yuuro. Socdaalka safarka waxaa ku jira caddaynta tigidhada safarkaaga wareega. Dukumiintiyada kale ee muujinaya gaadiidka la damacsan yahay. Waa inaad haysataa caddayn waxa ay tahay inaad qorshayso inaad ka samayso Jarmalka gudaheeda muddada aad rabto inaad sii joogto. Habka codsiga fiisa. Dalbashada fiisada Schengen waxay noqon kartaa mid dhib badan. Waxaad caawimaad ka heli kartaa safaaradda loo qoondeeyay ee dalkaaga hooyo. Waxaad ka codsan kartaa liiska hubinta safaaradda dukumiintiyada loo baahan yahay nooca fiisaha aad rabto inaad dalbato. Buuxi foomka dalabka macluumaadka saxda ah. Waa inaad ballan uga samaysataa waraysiga safaaradda Jarmalka ee waddankaaga aad ku dhalatay. Waxaad ballanta ka qabsan kartaa ballanka 3 bilood ka hor safarkaaga. Kaydso risiidka kadib bixinta fiisada. Waa inaad tusaa waqtiga ballanka. Shuruudaha fiisa dheeraadka ah ee Jarmalka ee yar. Shuruudaha dheeraadka ah ee fiisaha Jarmalka ee loogu talagalay carruurta codsanaya inay helaan fiiso joogitaan gaaban waa sidan soo socota. Shahaadada dhalashada kan yar ee u safraya Jarmalka. Foomka dalabka Jarmalka waxaa wada saxiixay labada waalid. Amarka maxkamadda qoyska. Xaaladaha halka waalid kaliya uu si buuxda u haysto cunuga. Nuqulo la xaqiijiyey ka aqoonsi baasaboor labada waalid ah. Ogolaansho waalidnimo oo nootaayo ah inaad u safarto Jarmalka oo ay wada saxiixeen labada waalid mas'uuliyiintu haddii ilmuhu keligiis safrayo. Fiiro gaar ah markaad ka codsanayso safaaradda qunsuliyadda Jarmalka, ilaaliyaha ama waalidka waa inay raacaan carruurtooda da'da yar. Dukumiintiyada loo baahan yahay ee fiisaha Jarmalka ee loo yaqaan Schengen visa ee xaaska sayga muwaadin Jarmal ah. Markaad codsanaysid inaad hesho fiiso Jarmal ah xaaska dhalashada Jarmalka, waa inaad keentaa dukumiintiyada dheeriga ah ee soo socda. Caddaynta dhalashada Jarmalka ee xaaskaaga, kaarka aqoonsiga ama kaarka qunsuliyadda ama caddaynta dhalashada Jarmalka ama amarka dhalashada. Shahaadada guurka Jarmalka. Buugga diiwaanka qoyska Jarmalka. Fiisaha Jarmalka ee Schengen ee xubnaha ergooyinka rasmiga ah. Markaad codsanaysid inaad hesho fiisada Jarmalka xubin ka mid ah wafdi rasmi ah, waa inaad keentaa dukumiintiyada dheeriga ah ee soo socda. Nuqulkii rasmiga ahaa ee casuumaada. Caddayn ku saabsan ujeeddada safarka, wadahadalka, shirka, dhacdooyinka ururada dowladaha, la tashiga. Sidee loo dalbadaa fiisaha Jarmalka ee muddada gaaban? Si aad u dhammaystirto nidaamka arjiga si aad u hesho fiiso joogitaan oo gaaban Jarmalka, waa inaad raacdaa tallaabooyinkan. Ogow nooca fiisaha Jarmalka ee aad u baahan tahay. Hubi meesha aad u baahan tahay inaad ka dalbato. Buuxi foomka dalabka fiisada joogida Jarmalka. Ururi shuruudaha sharciga fiisaha Jarmalka. Ha iloobin inaad hel caymiska caafimaadka safarka. Waxaad ka heli kartaa internetka caawinta Yurub, kaalmada AHA ama Darwalter. Diyaarso duulimaad. Diyaarso hoygaaga. Jadwalka waraysiga fiisada. Ka soo qaybgal waraysiga safaaradda Jarmalka qunsuliyadda FAH. Sug jawaabta dalabkaaga. Halkee laga codsanayaa fiisaha Jarmalka ee joogitaanka gaaban? U soo gudbi dalabkaaga fiisaha Jarmalka si aad u booqato Jarmalka wakiilka awooda u leh Jarmalka ee dalka aad degan tahay. Hay-addan matalaysa waxay noqon kartaa sidan soo socota. Safaaradda Jarmalka. Qunsuliyadda Jarmalka. Xarunta codsiga fiisaha oo Jarmalku u soo gudbiyey fiisa soo gudbin. Safaaradda qunsuliyadda dal kale oo Schengen ah oo Jarmalku u gudbiyey fiiso. Ayaa ka dalban kara fiisaha Schengen safaaradda Jarmalka qunsuliyadda FAH. Haddii aad qorshaynayso inaad booqato Jamhuuriyadda Federaalka Jarmalka oo keliya oo aanad jirin waddan kale oo Schengen ah, inta lagu jiro safarkan, ku soo gudbi dalabkaaga fiisada Schengen safaaradda Jarmalka qunsuliyadda FAH.
dhinaca kale dowladaha Schengen waxay sameeyeen sharciyo ku saabsan halka laga codsado haddii ay dhacdo inaad qorsheynayso inaad booqato wax ka badan hal dal. Haddii Jarmalku uusan ahayn meesha kaliya ee aad ku aadayso dhulka Schengen, ku soo gudbi dalabkaaga safaaradda Jarmalka qunsuliyadda fac kaliya haddii waxaad joogi doontaa maalmo badan Jarmalka marka loo eego waddamada kale. Waddan kasta waxaad ku qaadan doontaa maalmo isku mid ah, laakiin waxaad ka geli doontaa aagga Schengen ayada oo loo marayo Jarmalka. Fadlan la soco inaadan dalban karin fiisada Jarmalka ee wakhtiga gaaban ee waddan aad hadda fiisa ku joogto. Waxaad u baahan tahay inaad muwaadin ka noqotid waddankaas, ama aad ku joogi karto oggolaanshiyaha joogitaanka halkaas si aad ugu qalanto inaad xarayso dalabkaaga fiisaka Jarmalka. Muddo intee le'eg ayay qaadanaysaa si loo helo fiisaha Jarmalka? Wakhtiga laga baaraandegayo fiisadaada joogitaanka gaaban ee Jarmalka ayaa qaadan karta ilaa 15 maalmood. Haddii aad xaraysato dalabkaaga fiisaha inta lagu jiro xilliyada ugu sarreysa marka safaaradaha Jarmalka ay helaan codsiyo aad u tiro badan, waxaa laga yaabaa inaad sugto ilaa 30 maalmood inta laga shaqaynayo.